السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkaad naga daawaysaan waxay dhigan media fadlan subscribe like share iyo comment jazakallah khair. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، walaalada ida sharafta leh, asxaabtayda sharafta leh, salaamu ullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. meel kasta adduunta ka joogtaan, insha allahu tacaala kilibkeena yarka maanta insha allahu tacaala ducaan ku bilaabaya ilaahay subxaana wa tacaala inuu iga aqbalo, adna ku aqbalo. aamiinta insha allahu tacaala. ilaahay subxaana wa tacaala dartiisa aan isugu kaalmayno. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا كربة إلا نفسته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضرا إلا كشفته. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا أكرم الأكرمين. لا تردنا خائبين يا ربي يا رحمن. ilaahay subxaana wa tacaala ducadeena ha inaga aqbalo, ramadaankeena allah inaga aqbalo. walaalkayga qaaliga ahu insha allahu tacaala tanbiihaadkeeni ramadaanka ayaan insha allahu tacaala kuusoo gudbinayaa topic muhiim ah oo very interesting han kuusoo gudbinayaa, very interesting actually. insha allahu tacaala ramadaanka gudihiisa waxyaalaha in laga hadlayo munaasabka ay tahay. maxaad ka og tahay waxaa la yidhaahda brank is something interesting. brank markaa maqasho wax lagu maadaysto oo qosol iyo sheekale iyo waxyaalo fara badan kugu soo dhacaya. brank definitionkiisa waxaa waaye ama tafsiirkiisa waxaa waaye a practical joke. waa practical joke waaye, waa qosol si practical ahaan loo sameynayo waaye. many times wuxuu lahaan karaa consequence ama caaqibo xun ayuu lahaan karaa. practical joke oo sida branka la sameynayo oo kale wuxuu lahaan karaa caaqibo xun oo uu ku dhammaan karo. brankas ku dhama dhimashuu keeni karaa, wuxuu keeni karaa naxdin heer sar uu keeni karaa oo khatar inteeda leh. wuxuu keeni karaa trauma wax la yidhaahdo ayuu keeni karaa. branka xalaal miya iyo xaraan miya meesha ma taalo, masalada waa masalo gooniya. laakiin branka automatically generally branka la sameynayo waa xaaraan oo isagu waxyaalaha xalaasha kamid maaha branka la sameynayo. marka maadaama branka uu noocaas yahay, wax kugu dhiirigeliya branka waxa uu yahay iyo faa-iidooyinka iyo khasaarooyinka uu leeyahay kaagama sheekeyn karo. wax badanaa aragtay branka la sameeyo oo dhibaato badan ka timaaday, qosolka ka sakow. laakiin ka soomaali ahaan keenna aan ka hadalno. awalan walaalkayga qaaliga ah, walaashayda qaaliga, branka uu soo badanaya ramadaanka awgiis. xaafadaha lagu sameeya, guryaha lagu sameeya, meel kasta lagu sameeya. every cliba afarto branka soomaalida sameynaya ayaa soo baxaya. madadaalo iyo joke ayaa looga jeedaa, laakiin consequence iyo caaqibo xun ayuu lahaan karaa inta badan. branka awalan waa been, thaaniyan naxdin ayaa ku jirta, waa xaaraan. thaalithan waxaa ku jirta akhlaaq xumo ayaa ku jirta, waa xaaraan. raabican waxaa ku jirta wax qofka damiirka muslimka ah uu salawaatullahi wasalaamu caleyhi uu diiday. salawaatullahi wasalaamu caleyhi wuxuu leeyahay min xusni lislaami lmar-i tarkuhu maa laa yacniihi. qofka muslimka ah wanaagiisa iyo shaksiyadiisa iyo wanaagiisa waxay ku jirtaa waxa maalaa yacniga inuu isaga tago. subxaanaka yaa cadiim. min xusni lislaami lmar-i tarkuhu maa laa yacniihi. muslimka wanaagiisa iyo shaksiyadiisa, wiil iyo gabar waxaa tahaba, sharaftaada iyo cizigaaga iyo karaamadaada iyo quruxdaada iyo haybadaada waxay ku jirtaa an tatruka maa laa yacniik. waxaan waxba kuu tarayno maa laa yacni inaad ka tagto. subxaanaka yaa cadiim, subxaanaka yaa cadiim. salawaatullahi wasalaamu caleyhi ayaana ku dhahay arrintaa iyada. baraanka maadaama uu been yahay, ramadaan lagu jiro baraankina aad samaynayso, ramadaankaagi khasaaro u keenaya. oo waxaad soo gelaysaa man lam yadac qowla zuuri walcamala bihi ayaad soo gelaysaa. qofkaanan hadalka xun iyo qowlka xun ama beenta ka tegin oo ku camalfalkiisa haddana aanan ka tegin, inuusan thawaab iyo ajir ka lahaaneyn, ramadaankiisa soo gelaysaa. salawaatullaahi wasalaamu caleyhi wuxuu leeyahay isagoo ka hadlaya beenta sida kaftanka loo dhaho. baraanka waa kaftan, sow ma aha? bal fiiri salawaatullaahi wasalaamu caleyhi siduu u meldhigay. bal fiiri salawaatullaahi wasalaamu caleyhi wuxuu leeyahay ana zaciimun beytun fii wasdi ljanna liman tarika alkadiba wain kaana maazixa. subxaanaka yaa cadiim, subxaanaka yaa cadiim. maa axlaa yaa qawma adyab. salawaatullaahi wasalaamu caleyhi anigaa u ballan qaadaya ayuu leeyahay guri jannada bartankeeda ku yaala. qofkii isaga taga beenta xataa hadduu kaftan ahaan u dhihi lahaa subxaana yaa
liman taraka alkadib wain kaana maazixan hataa hadduu si kaftan u sheegaayo qofkii beenta isaga taga ilaahay dartii uga taga been hataa hadday kaftan ahaan lahayd isaga taga kaftan hataa aana ku samaynin anigaa u ballan qaadaya ayuu leeyahay salawaatullaahi wasalaamu calayhi beytun fii wasdi aljanna guri ayaan uga ballan qaadanaya jannada dhexdeeda bartankeeda ah subxaana allahi caza wajal salawaatullaahi wasalaamu calayhi wuxuu leeyahay wa ana zaciimun beytun fii acla aljanna subxaana allahi caza wajal qofna anaa u ballan qaadayo jannada halkeeda ugu sarraysa guri ayaan uga ballan qaadaya buu leeyahy salawaatullahi wasalaamu calayhi liman xasana khuluqah ninkii akhlaaqdiisa wanaajiya subxaana allah ninkii akhlaaqdiisa wanaajiya mithaal yar baan ku siinayaa wiil baa baraank samaynaya xaaskiisu ku samaynaya uuray lahaan kartaa wallacay ahaan kartaa xaamilay ahaan kartaa naxdinta qofka laga nixinayo bini aadanka ah waxay ku keenaysaa trauma wax la dhaho ilmihii gudihii ku jira hataa effectyaa gaaraya subxaanaka yaa cadiim ilmihii gudihii ku jira effectyaa gaaraysa zawjadaadii wanaagsanayd ee xaaskaaga ahayd naxdinta aad ka nixisay keliya it takes a time in laga soo waaqsado gadaal ha laga qosqoslo haddii la doono shaacira ha laga dhigto haddii la doono laakiin awalan jugta marka ay dhacdo wixii qofkaa gaari lahaa waa gaareen wixii qofka gaari lahaa waa gaareen ma bannaan tahay marka qofka muslimka in laga nixiyo salawaatullaahi wasalaamu calayhi saxaabada waxay leedahay dhegeyso subxaanaka yaa cadiim saxaabada waxay leeyihiin bal dhegeyso salawaatullaahi wasalaamu calayhi saxaabada waxay soo wariyeen ana rajulan sa'ala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nin ayaa salawaatullaahi wasalaamu calayhi rasuulka weydiinayo leeyahay ayu lislaamu khayr rasuulka ilaahayo islaamkeebaa ugu khayr badan salawaatullahi wasalaamu calayhi wuxuu leeyahay tudcimu tacaam cuntada inaad siiso dadka aad la qiibsato oo aad wax bixiso wa taqra'u asalaam dadkana aad salaanto calaa man tacrif waman lam tacrif qofaa taqaana iyo qofaa aqoonin inaad tirahdo asalaamu calaykum subxaana allahi caza wajal qofka muslimka ah waxaa laga rabaa inuu akhlaaqdiisa ay heerkaa gaarsiisanaato qof kasta oo bini aadam muslim ka soo horbaxa inuu yidhahdo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salawaatullaahi wasalaamu calayhi saxaabada waxay soo warinaysaa waxay leeyihiin qaar ka mida waxay leeyihiin kaanuu yasiiruuna maca anabiyi sala allahu calayhi wasalam saxaabada iyo rasuulka isla socday oo meel safar ayay u wada socdeen buu leeyahay fanaama rajulun minhum meel baa la fadhiistay markii la nasanayay nin ka mida saxaabadii ayaa seexday subxaana allah fandalaqa bacduhum ilaa xablin macah saxaabadii qaar ka mida ayaa xirigii u watay ka qaateen asiga oo jiifo subxaana allah fa fazaca ninkii waa soo naxaya waa soo baraarugay ilaa wuu jiifay xirig baa lugta ugu xirnaa uu haystay lugtiisa agtiisa yaalay xiriga bay saxaabada qaar ka mida qaadeen fa fazaca wuu soo naxay ayagana laftirkooda naxdintaas ay kaga jeedeen sida tafsiirka ku cad xadiidkani subxaana allah faqaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi subxaana allah laa yaxilu limuslimin an yurawica muslima subxaana allah muslim xalaal uma aha muslim kale inuu ka naxiyo subxaana allah samicta hada alxadiid weliga xadiidkan ma maqashay subxaana allah allah yaxfadak wayarcaaka in sha allahu tacaala laa yaxilu limuslimin an yurawica musliman qof muslina uma banaana qof muslima oo walaalkiisa inuu ka naxiyo baraanka haddaa u malaynaysa wax faana inuu yahay rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayhi qolkiisa dhegeyso hooyadaa ka nixi walaalkaa ka nixi walaashaa ka nixi dumaashidaa ka nixi xaaskaaga uurle ka nixi qof walba ka nixi waxaa doonta sheeg hala wada naxo kadib gadaal ha laga qoslo laa yaxilu limuslimin an yurawica musliman qof muslina uma banaana qof muslima oo kale inuu ka nixiyo salawaatullahi wasalaamu caleyh ayuu leeyahy subxaana allah caza wajala salawaatullahi wasalaamu caleyh waxaa kaloo laga soo walinaya ana rajulan akhada nacla rajulin nin baa nin kaba ka qaatay subxaana allah soo jiifa markuu kabihii ka qaatay farawaca wuu ka nixiyey nin baa nin kaba ka qaaday asoon arkaynin farawaca wuu ka nixiyey subxaana allah faqaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi subxaana allah ina rawcata muslimin cinda allahi cadiim qof muslina oo laga nixiya alla agtiisa waa shay weyn subxaana allah ina rawcata muslimin cinda allahi cadiim qof muslina oo laga nixiya alla agtiisa waa wax weyn waay subxaanaka yaa cadiim subxaanaka yaa cadiim walaalkaygii oo walaashaydii baraanka haddaad u malaynayso just something fun inuu yahay axaadiitan salawaatullaahi wasalaamu calayhi adigay si toosa kuula hadlaysaa baraanka xalaal ma aha awalan waa kidbi oo waan kuu soo sheegay oo fursaddaa jannada guriga lagaaga dhisi lahaa ha seegin thaaniyan naxdin ayaa ku jirta oo haddan kuu sheegay laa yaxilu limuslimin an yurawica musliman qofka muslim inuu ka nixiyo uma banaana ina rawcata muslimin cinda allahi cadiim qof muslim laga nixiyo alla agtiisa waa shay weyn oo dembi ah subxaanaka yaa cadiim subxaanaka yaa cadiim walaalkayow intaa hadday kugu filnaan weydo
mid kasii daranaan kuu sheegaya oo salawaatullaahi wasalaamu calayhi uu soo gudbinayo uu noo soo tabinayo saxaabada ay noo soo tabinaysa salawaatullaahi wasalaamu calayhi wuxuu leeyahay qaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam ilaa barankaga laguu sheegayo waa practical joke of naxdin ku jirto. That's all. Baranka haddaa maqasho waa shay naxdin ku jirto oo practical joke ah waay laakiin naxdina ku jirto. hooyaa loo imanay waxa la hooyo wiilka waa la ismurugaysiin hooyo maanta akhbaar xun soo maqlay wiilkeedii oo walaalkiisa laga yaabo inuu wuxuu leeyahay hooyo hebel gaari shil ku dhintay waqti maanta hooyadii waa naxday subxaanaka yaa cadiim wiilkii orday albaab ka soo galaayo baranka waa lagu leeyahay what kind of prank is that subxaanaka yaa cadiim subxaan allah you cause waxaad sababtay mucjiso weyn aad sababtay subxaan allah masiiba ku sababtay maamadii laga yaabo dadka baranka aad ku samaynayso underlying condition or healthy condition inay qabaan dadka baranka ku samaynayso ehelkaaga ah ee qaraabadaada ah walaalada ay xaaskaaga iyo faamilkaaga ah qaar laga yaaba underlying condition ay qabaan blood pressure ay qabi karaan sokor ay qabi karaan ada waxay qabi karaan mental issues ay qabi karaan by the time of ku samayso jugtaas naxdinta ku samayso subhanallah you have caused a lot of damage or la samayn karin damage aan la samayn karin oo xagga caafimaadka sababtay subhanaka yaa cadiim marka walaalkayow I love Brank waa jeclahay laakiin because waxaan aan kaaga soo sheekeeyay salawaatullaahi wasalaamu calayhi diintan ay ka sheegtay awgeed ayaan u jeclaanaynin subhanallah waxaa jeceshahay oo diinta ay ka reebayso badan soo ma jiro taasoo ka mid yahay Brankiga aan kala hadlaayo salawaatullaahi wasalaamu calayhi wuxuu leeyahay man akhaafa mu'minan qofkii qof muslina ka cabsiya oo waxyaalahan Brankiga oo kale wixii lamid kaga cabsiya ama hub kaga cabsiya ama wax kale kaga cabsiya wax kale kaga naxiya من نخاف مسلما نينك قف مؤمنة كنحية أو خوف كسمية كان حقا على الله إلهي وحا أكتيس لوغا قري عند الله إلهي أكتيس ألا يؤمنه من أفزاع يوم القيامة كان حقا على الله إلهي وحا حقها قف قاسي مؤمن كساء نحي مالك قيامة من أفزاع يوم القيامة إننا لقم جنجليني سبحانك يا عظيم رزقك أنت لك مو بريري كرتان كان حقا على الله ألا يؤمنه من أفزاع يوم القيامة مالك قيامة يوم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة يوم الفزع الأكبر كمان يكوجر مالك فزع وين أوجره إن هذا فزع كبد بادين باد هلس أوجرتا هداد عادك اللي جتبرانك قاعد كجن حينيسو ولا شيء ولا لك يحاس كاجي هو يدا يدك كلا كجن حينيسو دتك عند الله ددا ودنت سبحان الله هذا تاجدك غير كدعة بلاد بريشر كوكرة سكرتا ku kacda riskiga inta la eg adiga keenay qasaarad keentay waxaan xadiis aan ku soo taxraakaaga sheekeynayaan walaalkayga insha Allah ta'ala haduu baranka caada ku yahay ama saaxiibka uu caada u yahay insha Allah ta'ala kilibkan la wadaag qalbi idin jecel ba idin soo gudbiyay ilaahay dadti idin jecel inaad jannada ku kulantaan ilaahayna araali gelisaan salawaatullaahi wasalaamu calayhi wuxuu leeyahay laa yaxilu limuslimin an yurawica musliman qof muslina uma banaana qof muslim inuu ka nixiyo subxaana allahi caza wajalla ina rawcata muslimin cinda allahi cadiim mu'minka ama muslimka oo laga nixiyo cinda allahi cadiim shay weyn waa ilaahay agtiisa subxaana allahi caza wajalla salawaatullaahi wasalaamu calayhi maadaama barankayga waxa dhan uu ka koobay ay tahay been iyo naxdin salawaatullaahi wasalaamu calayhi wuxuu leeyahay أنا زعيم بيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا أنا أبلن قاضي يقولي جنة برتن كذا نينك بين إسقطك حتى هدو كفتماي سبحان الله برنك سو كفتمينين إلهي درتي وقتك قولي جنة نحن اللي قاعد لها سيجن إلهي درتي برنك وقتك وهجلين دتك صلوات الله وسلامه عليه أولي هي حقا على الله ألا يؤمنه من فزع يوم القيامة من نخاف مؤمنا كان حقا على الله ألا يؤمنه من أفزاع يوم القيامة حديث عظيم واي سبحان الله تهديد واي سبحان الله warning واي big warning إلهك كون قرينا أو كودك كلها حقا على الله إلهي دشي سوحاء هذا إنه هذا كبت بادن من أفزاع يوم القيامة يوم الفزع الأكبر أي نحن أنت بنجرت إن هذا كبت بادن يعني وقبها بدل مالكاس إن شاء الله تعالى ولا لك خالقة ولا شيء خالقة وحيالها مهمك diinteena in laga barta ay munaasabka ayaa kamid tahay baraankiga xaraam waay subxaan allah waxaa kugu filan axaadiitan aan kaaga soo sheekaya kugu filan oo kulligood saxaabada ay soo wada tabinayaan salawaatullaahi wasalaamu calayhi qof kaba laga qaaday ama xirig laga jiiday wuxuu leeyahay laa yaxillu limuslimin an yurawica muslima qof inuu ka naxiyo uma banaana subxaana allahi caza wajal ina rawcata muslimin cinda allahi cadiim qof muslim oo laga naxiyo cinda allahi shay weyn waay man nakhaafa mu'minan
كان حقا على الله ألا يؤمنه من أفزاع يوم القيامة قف مسلم كنحية كعبسية إلهي وحا حق هذا دوشيس إنه سلمانك قيامها نحذنت أيام الفزع الأكبر كوين أجره أنا لقبت بادنين الله أكبر كبيرا هداد كفتن كلا جيدي رمضان كدرتي أدا إلهي درتي أدا وحن كلو كقدر يا صلوات الله وسلام عليه وحليه من ترك شيئا لله ننك إلهي درتي وح أقتك عوضه الله خيرا منه ننك إلهي درتي وح أقتك إلهي وحك خير بدن سينايا بل خرج كدوا هيستا كاميرا دي بعد هيستا إنجي بعد هيستا عافيمات بعد هيستا سبحانك يا عظيم هذا القرآن أخرنايا oo ilaahay subxaana watacaala qolkiisa sheegaya ama walaalaha kale khayrkay kuusoo gudbiyeen dadka usii gudbinaya ama xaaskaaga wax wanaagsan kala tashanaya ama walaalada wax khayra u sheegaya noo soo gudbi wax practical joog oo fiican oo reality oo dhaco noo soo sheeg oo lagu qoslo wax badana lagu qoslaa jira subxaan allah oo real u dhacay nooga soo sheekay waxaas annagana aan habi kugu ahaano adigana dambi aadan ku galaynin laakiin baraakinka soo ma aha iyaaka wa iyaaka iyaaka wa iyaaka ilaahay ka cabso baranka iska daa برانك it's not حلال عاقب حمضان وميرنا كاغ إيمانيس إن شاء الله تعالى dadka aad ka nixisa qaar kamid ishooda ku galaysa subxaan allah aada eedahan wallah hadan ka soo waaqsanayna si xunaana laga yaaba adiga laftirkaaga in ilaahay kaaga nixiyo oo meel halis aad ka booda laga yaaba qofnaha ka nixina subxaanaka yaa cadiim ku baraarugsano insha allah tacaala walaalkayga iyo tanbiihaadkan aan kusoo gudbiyey kuwii kale ee ramadaanka aan ugu talagalayna insha allah tacaala waan kusoo gudbin doonaa maalinta ka dambaysa ilaahay dartii kilibkan u gudbi insha allahu tacaala midaad jeceshahay iyo midaad necab tahay iyo midaad saaxiib la tahay iyo mid kaleba walaalaha muslimiinta oo dhan u gudbi insha allahu tacaala khayrkan ila wadaag insha allahu tacaala shirka igula noqon khayrka axaadiitan aan kuusoo gudbiyey khayrka aan kuusoo gudbiyey insha allahu tacaala انشر إن شاء الله تعالى الله يحفظك ويرعاك ويحبك إلهي درتي أياك وجعلها إن شاء الله تعالى اللهم عافي مبتلى اللهم عافي كل مبتلى واشف كل مريض واهد كل عاسي فتيسير العسير عليك يسير وفك كل أسير اللهم يا ربي يا رحمن إلهي النوع عافي أنت نجح نوسن إلهي هو رحمن أنت نقدمتي إلهي النوسو هنوني أنت بعد يسن إلهي سبحانه وتعالى هسقري أنت محل له جري محل كذا كلا كجرته خير بركة كجتك يا الله في حفظ الرحمن ولقاء أخرى سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته برانك is not a برانك وحرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان ده رحمة من ربنا نعمة بيحل حياتنا ويفرشها ورود